Ku soo dhawow habeenkii toddobaad oo aan si iskee ah luqadda Ingiriishta u baranayo. I hope inaad ila baranaysid 6 habeen ee la soo dhaafay. 6 habeen ayaan luqadda iskiisa soo barayay. Waxaan rajeynayaa sidoo kale inaad adigu ila baranaysay. Haddaad ku jirtay dhalinyarada ila baranaysay caawa habeenkii toddobaad. Marka let's go forward aynu hore u soconno aynu wax wada baranno English aynu wada baranno English waa easy. Marka caawana waxaan baranaa 5 vocabulary iyo 5 new phrases. Ilahuna channelkeeda kusoo biirto subscribe saarto like waa inoo muhiim aad bay noo caawinaysaa. Ku dadaala inaa muuqaalkayga noo saartaan sidoo kale telegramkana kusoo biiro oo raaca linka description saaran. Wax kastoo luqadda English ku saabsan yaad ka helaysaa, films yaad ka helaysaa, radio yaad ka helaysaa, grammar baad ka helaysaa, books baad ka helaysaa, everything oo luqadda ku saabsan waad ka helaysaa. Hana ilaawin inaa kusoo biirtaan. Thanks. Marka cashirkeena ayaan bilaabaneynaa. Luqadda Ingiriishtuna waa sidaad adigu isu barto inaad luqadda ku hadasho horta ha ka cabsanba. Aniga laftarkayga hadda kula hadlaya walahi miyaan moodaysaani waan ka baqaa luqadda kuma hadlo inta badan waan cabsadaa laakiin waan isku khasbaa marka qof walba waxaan rajeynayaa inuu isku khasbo luqadda isbaro. And inshallah one day we will speak together si wada jir ayaan wada hadli doonaa. Marka let's start our video. Jumlada koowaad wax weeyaan it is not worth it uma qalanto. It is not worth it uma qalanto. It is not worth it uma qalanto. Jumlada labaad wax weeyaan I am on my way waan soo socdaa. I am on my way waan soo socdaa. I am on my way waan soo socdaa. Jumlada saddexaad wax weeyaan it's been a while muddo ayaa laga joogaa. It's been a while muddo ayaa laga joogaa. It's been a while muddo ayaa laga joogaa. Jumlada afraad wax weeyaan let's catch up aan isa soo qabano. Let's catch up aan isa soo qabano. Let's catch up aan isa soo qabano. Jumlada shanaad ahna tan ugu dambaysa wax weeyaan what are you up to maxaad ka fikiraysaa. What are you up to maxaad ka fikiraysaa. What are you up to maxaad ka fikiraysaa. shantii fayraysyaas in ugu dhammaystiran haddana kusoo dhawaada qaybta xigtay oo ah vocabulary-ga. Haddana kusoo dhawow qaybtii vocabulary-ga. Ereyga koowaad wax weeyaan detail faahfaahin. Detail faahfaahin. Detail faahfaahin. Ereyga labaad wax weeyaan advantage faa'iido. Advantage faa'iido. Advantage faa'iido. Ereyga saddexaad wax weeyaan logical macquul ah. Logical macquul ah. Logical macquul ah. Ereyga afraad wax weeyaan enemy cadow. Enemy cadow. Enemy cadow. Ereyga shanaad ahna kan ugu dambeeya wax weeyaan compare isbarbardhigid. Compare isbarbardhigid. Compare isbarbardhigid. shantii vocabulary saasay nagu dhammaystiran yihiin. Markaa soo qayba ku dadaal inaad diyaariso saan keliya taa dhegeysanna buugaa ku qorta. Imika 6 habeen oo habeen kasta 5 vocabulary soo dhiganayay aan soo dhiganaynay 6 waxaad ku dhufataa 5 waxay noqonayaan baan malaynayaa 30 erey iyo 30 phrasal verbs ah 120 kaas haddaad qaybto wax badan baad iska bedelaysaa. Marka ku dadaal inaad soo qaybto oo diyaariso buug ku qorato waxaan la dhahdaa aad ku celceliso practice ku samayso. The more aad isticmaasho vocabulary waa the more aad luqadda sii horumariso. Hana ilaawin inaad kusoo biirtaan telegramkana kusoo biiro telegramkana wax badan baa ka faa'iidaysan. Linka description-ka raaca. Linka description-ka yaala raaca.